telefishinka Al-Jazeera ayaa ka laabtay eedeymo been abuur ah oo ka faafiyay shirkadda Dahabshiil Group kadib markii shirkaddu soo saartay war-saxaafadeed eedahaasi ay iskaga fogeysay. laanta afka Carabiga ee telefishinka Al-Jazeera ayaa barnaamij u baahiyay 17kii bishan ee sanadda 2019 waxaa ku jiray eedeymo ka dhan ah shirkadda Dahabshiil Group, laakiin telefishinka ayaa barnaamijkiisa ka saaray qeybaha ku saabsan shirkadaasi. war-saxaafadeed shirkadda Dahabshiil ay soo saartay 19kii bishan ayaa lagu yiri Dahabshiil waxay ugu baaqaysaa telefishinka Al-Jazeera inuu ka noqdo eedaha aan sal iyo raatoona lahayn isla markaana macluumaadkan ka saaro bogga lagu baahiyay. kadib war-saxaafadeedka, telefishinka Al-Jazeera waxa uu barnaamijka ku jiray boggiisa ka saaray qeybaha ku saabsan shirkadda Dahabshiil. shirkadda Dahabshiil ayaa hore u sheegtay in aanu telefishinku siinin xuquuqda jawaabta intii aan la baahin barnaamijka, taas oo saamixi lahayd in laga fogaado eedo aan sal iyo raatoona lahayn oo barnaamijka ku jiray kana dhan ah shirkadda Dahabshiil Group oo si xoogan u beenisay eedaha Al-Jazeera. gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Maxamed Siciid ayaa sheegay in shirkaddu dhiirigelinaysa saxaafadda caalamka oo dhan ee xaqiiqda ku salaysan. ciddii Dahabshiil doonta inay la hadasho ma weydo. Dahabshiil waxa ay ka shaqaysaa in ka badan 120 waddan oo caalamka. nasiib darro, wax xiriir ah oo ay nala soo sameeyeen ma jirin. haddii ay nala soo sameyn lahaayeen si sax ah ayaan ugu jawaabi lahayn waxyaabaha ay doonayaan inayna weydiiyaan. annagu saxaafadda caalamka oo dhan xorriyadooda iyo shaqadooda ixtiraam baan u haynaa. in saxaafaddu shaqadeeda qabsatana ixtiraam baan u haynaa, laakiin sida caalamka looga shaqeynayo waad ogtihiin BBC-da iyo kuwa la midka ahba cadaaladda inay ilaaliyaan oo cidda ay magaceeda sheegeen hubiyaan oo ay siiyaan inay ka jawaabaan. sidaasi waxaa yiri Cabdirashiid Dahabshiil oo BBC-da u waramayay. Faad Axmed Kaariye, Bulsha TV.